qabsoomay 9 bishii 2020 mooshinkaas oo laga dalbanayo in habka lagu buuxinayo labada xubnood ee ka banaanaday golaha kadib markii ay ku timid geeri marxuum Axmed Cabdi Kaahin iyo marxuum على الشيخ إبراهيم آرية إلهي جنة إلهي ونحرسته oo laga soo doortay gobolka Awdal xisbiga Awdal ka soo dhamaaday kaydkii bedeli lahaa xisbiga Awdal hadaba mooshinkan ay soo gudbiyeen mudanayaal ay ka soo xaadireen 30 mudane waxa la waafajiyay xeersaadka golaha qodobkiisa 24 mudanayaasha golaha uu siinayo xaq inay soo gudbiyaan codsi mooshin isla fadhigaas laga xaadiriyay liiska mudanayaasha soo gudbiyay mooshinka kadib iyadoo la raacayo isla qodobka 24aad farqadiisa afraad ayaa waxa loo gudbiyay la taliyaha sharciga gareeqan Mustafa si uu hubiyo in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeersaadka markuu arkay in mooshinkaasi uu ka gudbay marxaladii koowaad waana waafaqsan yahay xeersaadka golaha qodobkiisa 24aad iyo 43aad markuu dirsay dastuurka qodobkiisa 4aad 49aad 50aad iyo 53aad ee xeerka doorashada golaha wakiilada xeer 20205 ee lagu soo doorto golahan oo sheegaya qodobkiisa 4aad in musharaxiinta layska xisbiyada ee kuraasta waaya waxay noqonayaan musharaxiinta kaydka ah waxayna xaq u leeyihiin inay buuxiyaan marka ay jago baneeyaan mudanayaasha xisbigooda kaga jira golaha wakiilada iyadoo loo raacayo siday u kala cod dheer yihiin markuu u fiirsaday nuxurka mooshinka waxa soo baxday si uu golahu arinta taagan ee legal vacuum uga qaato go'aan isagoo raacaya waajibaadka dastuuriga ee ku xusan qodobka 9aad 53aad iyo qodobka 3aad ee xeersaadka golaha wakiilada waa inuu wax ka bedelka iyo kaabis lagu sameeyaa xeerka doorashada wakiilada xeer 20201 qodobkiisa 14aad si loogu cadeeyo iyadoo aan ku kordhinay farqada 3aad oo u dhigmaysa sidan farqada 3aad baa lagu kordhinayaa qodobka 14aad waxayna u dhigan tahay sidan marka uu dhamaado xubnaha kaydka ee xisbi ku tartamay gobol doorasho ee golaha wakiilada waxa laga soo qaadan karaa kaydka xisbiyada kale iyadoo loo eegayo siday u kala cod badan yihiin liiska kala horeynta musharaxiinta komishanka doorashooyinka qaranka gareeqan Mustafa Maxamuud la taliyaha sharciga golaha wakiilada Hargeysa Somaliland Allah mahadle farqadaas lagu soo daray gudoomiye naga dhayn xaaladu waa xaalad naadira oo inta badan sharci laguma sameeyo xaalad naadira hadday san dhacday deegaanka ka taxaddarnaa loo baahan yahay waxa meesha taala dastuurkeenu mar walba 3 xisbi qaran baa jiray marka midka ay kiisu dhamaadeen ma ahayn labada kale ragga u cod badan ee liiska ku jira soo geliya taasay dib u dhigan tahay oo mafhuumkeedu leeyahay mudanayaal aad iyo aad mahadsantihiin soo jeedinta mooshinka ay ku keeneen mudanayaasha soo saxeen farqada lagu kordhiyay xeer number 20 mudanayaasha oo kale gacanta ولا أمرك بالبيت يا أفرت وشكا يسوق بيه الرياض القراءة والتنظيم كامل الاعتمادي وعوضاني أفرت المدرب هل مدربين بإعلان تمام سيد دوليوم وعضي سلاح سطوع صحيح